بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين أصحاب تميل كستو أدونك أك جوجتين سو دواada janalka Faiza's World waxaan rajeynayaa meel kastoo adduunyada aad ka joogtiin dhammaantiin inaad ku wada nabad qabtiin soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah maanta waxaan oo bilaabayaa tartanka timaha videogan asxaabta waxa video dalab ah oo gabdhaha janalka ay ku xiran qaar ay soo dalbadeen tartanka timaha inaan bilaabo bisha Ramadaan oo dhan inaan yacni tartankaas aan sameeyno ciid si aan u helno timo qurux badan oo dheer oo caafimaad leh oo badan oo maasha Allah kaal iska arag ah marka soo dhawaada asxaabta videoga like dhaha like ta hilmaamin insha Allah like badan noo saara aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayaa dhamaantiin haddii aanu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatana waa kusoo dhaweynayaa ahlan wa sahlan kusoo dhawow janalka subscribe ka taabo gambaleelkana furo si videoyaasha cusub oo soo gelino si toos ay kusoo gaaraan insha Allah aad iyo aad aan ugu wada mahadsantihiin dhamaantiin soo dhawaada marka asxaabteed qaaliga ah marka ugu horeysa asxaabta waxyaabaha oo muhiimka ah oo asaasiyaadka oo loo baahan yahay timaha intaan la nafaqeynin oo yacni saliida la marinin oo waxyaabo kale la marin marka hore waxaa la sameynayaa tinta waa la masawirayaa before iyo after علشان si loo ogaado yacni tinta say aheeday iyo marka dambe say noqotay yani bishaan kaamilka ilan tinta waa ka shaqeynaynaa marka waxaan rabnaa marka hore say aheeday masawir inaan ka qaadno kadibna insha Allah bisha markay dhamaato tinta say noqotay marka ugu horeyso masawirkaasaan ka qaadaynaa marka labaadna waxa waa asxaabta timaha in la fiiriyo waa inaan ka fiirino waa in aflaaqa haddii ay leedahay laazim aflaaqada laga jaro waa la inno tinta waxa waaye in aflaaqa haddii ay leedahay timaha ma dheeraanayaan ma baxaan marka tan labaad oo muhiimka ahna waxa waaye tinta aflaaqada in laga jaro videoyaal badan hore waa uga soo hadlay timaha laazim marka ugu horeysa number 1 waxaa la rabaa tinta inaa fiirisid aflaaqadeeda iyo siday tahay marka hore waxaa la rabaa aflaaqada horta in laga jaro tinta haddii aflaaqa ay ka leedahay waxa waaye in si kastoo wax ugu sameysid maaskaad kasta aa marisid saliida kasta aa marisid waxa waaye ma baxayso ma dheeraanayso la inna waxa waaye aflaaqa ay leedahay aflaaqada marka haddii aa hoos ka jarin koray usii soconaysaa way soconaysaa ilaa waxay ku tegaysaa dhexday ku tegaysaa meeshaas markay tagtana yacni ilaa madaxa koran ka wadaa meeshaas markay tagtana tinta khalaas waa isdeysiin way halaawda bis waaye yacni waxaa fiican in laga gaaro oo marka ugu horeysa meesha ay tinta ay ka bilaabanayso tinta hoose aflaaqada meesha ay ka bilaabanayso in laga jaro gabdho waxaa jiraan oo isoo dhahaan haddii aanan jarin ka waran oo iska dhaafano oo ihtimaam aan siino oo ka shaqeyno laazim waxa waa in la jaro waaye ihtimaam aan siinayso waxa ma u taraayo iyo ka shaqeyn waxa ma u tarayso marka ugu horeysa waxaa la rabaa tinta hoos in laga jaro wax badan ma ka jaraysid waxa waaye tinta wax yar aa ka jaraysaa markaa jaraysidna waxa waaye koofeer inaad tagtid ma aha la inna koofeerada waxa waaye markaad tagtid oo dhahda tima jaridaa rabaa hoos ha laga jaro waxa waaye wax weynay jaraan marka waxa waaye adigaa la rabaa inaad tinta gurigaaga aa ku jiratid يعني qofka kula jooga ah waxaa la rabaa inaad dhahdid hoos iga jar wax yar hoos iga jar ama adaaba jira kartid baxataa haddii timahaaga ay dheer yihiin adaaba jaran kartid haddii timahaaga ay yacni gaagaabiin ama dhexaad ay yihiin oo gaarinna waxaa leedahay in halayga jaro marka qofka kula noola kaa jaraayo sahal waaye aaday u fududahay wax yara markaas iska jaraysaa marka muhiim waxaa ah tinta aflaaqada hoose in laga jaro si markaas tinta ay u noqoto tin caafimaad leh oo markaas waxay bilaabaysaa bixitaan ay bilaabaysaa markaas maasha Allah tan saddexaadna waxa waaye asxaabta shaambada waxaa fiican in la iska ilaaliyo la inna shaambada waxa waaye chemical ay leeyihiin qaarkood waxa waaye chemicalka waa ku badan yihiin qaar waxa waaye maba lahanbo chemica qaarna waxa waaye waa ku yar yihiin marka waxaa fiican shaambadana in la fiiriyo oo shaamba markii aad rabtiin inaad soo gadatiin shaambooyinka oo yacni oo haddii aa helaysiin yacni shaambada oo chemicalka aanba lahayn maasha Allah aad u fiican tahay kuwa kale waxaa jiraan chemicalka oo ku yar yahay shaambooyinka waxa waaye asxaabta waxaa lagu daraa silicone iyo sulfate hore uga soo hadlay videoyaal waxaa jiraan aan si fiican uga soo hadlay shaambada waxaa la rabaa shaambada markay akhtaarinaysid oo soo gadanaysid inaad iska ilaalisid oo fiirisid shaambooyin marka waxaa jiraan oo lahayninba chemical intaa idin soo saara insha Allah iyo kuwa ay ku yar yihiin kuwa fiicanaa jiraan kuwa anaka isticmaalo maasha Allah aad u fiican marka iyagana intaa idin soo saaraya insha Allah masawirkooda waxaa kaloo jiro shaambada in la nafaqeeyo oo nafaqooyin lagu darsado videoyaal badan kasoo sameeyay siiba nafaqada bariiska iyo flaxseedka oo la isku karinaayo maasha Allah shaambada markii lagu daro nafaqa waxa waaye maasha Allah markii shaambada lagu daro timaha aad iyo aad kuugu nafaqeynaysaa way ku qurxinaysaa quway siinaysaa wayna ku bixinay maasha Allah nafaqa aad iyo aad u fiican waa nafaqadaasito nafaqooyin badan soo sameeyay asxaabta oo lagu darsanayo shaambada marka haddii janalka hoos aa u gashiin waa ka helaysiin shaambooyinka oo nafaqaysan shanlooyinka timaha loo isticmaalayo iyagana waxa waaye muhiim waaye shanlada marka badanaa waxaa lagu shanlaystaa shanlada caaga ah shanlada caaga marka waxaa ka fiican asxaabta shanlada oo qoriga ah shanlada qoriga marka tinta lagu shanlaysto waxa waaye waxay ka saacidaysaa in dhiiga oo si fiican u shaqeeyo
dhiiga marka si fiican u shaqeeyo xididada dhiiga ay shaqeeyaan timaha waa baxayaan shanlada qoriga aad u fiican tahay shanlooyinka marka isticmaalaysiin waxaa fiican shanlada inay ahaato shanlo oo afkeeda waa weyn yahay si markii aad shanlaysanaysiin si sahal ah ugu shanlaysatiin shanlada marka afkeeda ay yar tahay waxay ku sababaysaa yacni tinta inay hoos ka jajabto aflaaqada waxa keena badanaa waxa waaye markii shanlada ay yacni afkeeda ay yar tahay oo tinta xoog loogu shanlaynaayo hoos ay ka jajabaysaa sidoo kale qaleelkana waa keenaa in aflaaqada waxyaabo badanaa keenaa bas laakiin shanlada afkeeda yar oo tinta xoog loogu shanlaynayo waxa waaye waxay keenaysaa tinta inay hoos ka jajabto aflaaqa ay sababto marka waxaa fiican shanlada inay ku ahaato shanlo afkeeda waa weyn oo si sahla tintaada ugu shanlaysatid tartiibkana muhiim waay asxaabta waxaan ka wadaa yacni tinta inaan qaleelka lagu dhaafin oo la ratibo saliidda ka horna waxaa fiican tinta in lagu ratibo kareemka marka hore wax yaroo kareema marka hore marine kadib markaas saliid marine marka tartiibka saas waaye muhiim jiddan waaye in tinta la ratibo marka hore oo qaleelka laga ilaaliyo kareem waxaa jiraan timaha qaas u ah oo timaha loogu talagalay timaha la mariyo kareemadaasi dad waxa waaye waxay ku fiican yihiin timaha aad u ratibayaan waa qoynayaan maasha allah waxaana fiican in loo isticmaalo saliidda ka hor kareemka marka hore waxaa marsanaysaa kareemka markaa ku ratibtid kadib aad saliidda isticmaalaysaa aan marsanay kareemada marka siday u egyihiin asxaabta insha allah intaa idin soo saaraya sawirkooda kareemooyin fiicanaa jiraan oo timaha loogu talagalay timaha la mariyo sidoo kale saliidaha marka la isticmaalayo oo timaha u fiicanna waxaa waaye saliidda qumbaha markasta waxaa waaye saliidda qumbaha waa soo sheegaa saliidda qumbaha weliba waxaa si fiican tan oo organic ah haddii aa helaysiin maasha allah saliid aad u fiican waaye haddii organic aa helaynin waxaa isticmaalaysiin saliidda oo baarashuudka oo caaga buluuga ku imaato maasha allah saliiddaas iyadana waa fiican tahay saliidda qumbahana waxaa waaye asxaabta saliid oo yacni oo toos loo isticmaalo si joogto timaha loo isticmaalo laga dhaqaynin gabdho waxaa jiraan isoo weydiiyaan noo soo sheeg saliidaha oo timaha aan laga dhaqaynin saliidaha oo timaha aan laga dhaqaynin waxaa lambar 1 saliidda qumbaha maasha allah aad iyo aad u fiican tahay si khafiifa u isticmaalaysaa markaa marsanaysid lafta ma la rabo in laga buuxiyo saliid mar haddii aad lafta ku shubtid aad ka buuxisid laazim waxa waaye haddana inaad ka dhaqdid waaye marka sida kareemka camal oo marsanaysaa saliidda lafta ma ka buuxinaysa wax yaroo khafiifa u isticmaalaysaa sidoo kale waa lagu masaajeeyaa saliidda qumbaha tinta saliidda looska iyadana sidoo kale waaye waxa waaye iyadana saliid khafiif ah oo timaha aad ugu fiican oo si toos loo isticmaalayo sidoo kale saliid argaan iyadana maasha allah waaye saliid khafiif ah oo timaha la marsanayo waaye sidoo kale saliidaha sitod faraha wax yar la mariyaa markaasaa lafta hoos lagu masaajeeyaa maasha allah tabaaraka allah saliida oo aad iyo aad u fiican waaye oo si toos timaha loo marinayo joogto loo marinayo oo timaha aan laga dhaqaynin shalada timahana waxaa la sameeyaa 2 jeer la shanleeyaa maalintii subaxdii iyo habeenkii intaan la seexan ka hor iyo subaxdii la shanleeyaa haddii laga sii badin way fiican tahay yani galabtiin haddii lagu daro maasha allah la in shalada badan waxa waaye tinta marka shalada loo badiyo xididada dhiigga si fiican u soconayaan xididada dhiigga markay si fiican u socdaanna waxa waaye timaha maasha allah si fiican ay u baxayaan waxaa kaloo la sameeyaa asxaabta oo timaha ay ku baxaan masaaja madax loo sameeyaa habeenkii intaa la seexan ka hor aan la sameeyaa masaajkaas masaaj yar oo khafiif ah madaxa loo sameeyaa habeenkii intaa seexan ka hor masaajka marka intaa sameynin ka hor waxaa la sameeyaa saliida gacnaha la marsadaa yacni faraha saliid marine masaaj markaas madaxa kula sameynay gacmaha adoo saliid marsanin masaajka waxa waaye ma aha in la sameeyo marka hore waxa waaye faraha saliid marine markaa faraha saliid aad soo marisid kabacdi masaajka aad kula sameynaya madaxa si oo waxaa ku sameynaya marka oo xoog ahaynin oo khafiif aan kula sameynaysaa madaxa ku masaajeynay marka madaxa aad masaajeysid oo si fiican u masaajeysid kadib aad shanleynay madaxa markii aad shanleysid waa duubanay kabacdi aad ku seexanay marka masaajka madaxa in loo sameeyana muhiim waaye calashaan timaha ku baxayaan la inna waxa waaye masaajka markii madaxa loo sameeyo asna waxa waaye wuxuu sameynayaa dhiiga dhaqaaqaya oo soconayo markii dhiiga u dhaqaaqane maasha allah timaha way baxayaan marka isbuucan waxaan rabaa asxaabta inta idin soo sheegay inaad sameysiin oo timihiin aad kula soo dadaashiin insha allah videoga dambena insha allah waxaan kusoo sameysanaynaa spray dabiici ah oo timaha lagu buufinayo timaha aan laga dhaqaynin maasha allah ay timahana si degdeg ku bixinayo la socda insha allah marka waa kaasay asxaabta insha allah say noogu bilaabato waaye tartanka timaha isbuucan ay noo bilaabatay bisha ramadaan oo dhan waxaan rabnaa timaheen inaan si fiican uga shaqeyno si ciidaan u helno timo dheer qurux badan oo caafimaad leh insha allah waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iideen macluumaadka idin soo siiyey samaystan insha allah ku dadaala timihiina insha allah waxaan oo balan videoga dambe videogana like dhaha like tana hilmaamin insha allah videoga like badan noo saara aad iyo aadaan ugu mahadsantihiin
insha allah waxaan oo balan ee videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.